السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن صاحبتي مeel walba joogtaan si walba muuqaalkan idin soo gaarayo waqti wacan iyo caafimaad ayaan idin rajaynaya muuqaalkan waa mid ka duwan muuqaaladii hore waxaan ku soo bandhigi doonaa mid ka mid ah fikradaha ama waxyaabo ay la soo wadeegay saaxiibada channelka ku xiran oo ah in aan ka hadlo arrimaha bulshada maantana waxaan ka hadli doonaa arrimaha xiriirka qoyska waxyaabahaas la xiriira ayaan ka hadli doonaa waxaan soo qaadan doonaa 5 calaamo oo ragga ninka ragga ah hadii uu leeyahay ee dumarku ku jeclaan kara hadaba 5 calaamo hadii aad mid kamid ah leedahay laba kamid ah aad leedahay saddex kamid ah aad leedahay waxaad kamid tahay dumarka ragga ay jecel yihiin ayaad kamid tahay hadaba intaan u guda gelin muuqaalkan saaxiib naguna noqo bartan oo ah mid aan ku soo bandhigo waxyaabaha in dhalinyarada la xiriira oo inta badan sportigan aan ku soo bandhigo subscribe channelkan oo saaxiibada la wadaagto muuqaaladan sida maalinlaadka u soo gelinay u gaara hadaba numberka koobaad waxa uu yahay dad badan waxay u maleeyaan numberka koobaad ee dumarku ay ku jeclaadaan ragga waxa uu yahay dad badan ayaa u maleeyay in dumarku ay rabaan qof dabacsan qabow xafidan dumarkuna mana ahan macnaha dhabta ah sidaasi oo waxay rabaan qof firfircoon caan ah oo xitaa madax adag laakiin marna ma qara doonaan oo ma dhihi doonaan qof noocaas aan rabnaa hase yeeshee waxaad arkaysaa marmarka qaar dumar dhahaya tani waa sababta dhabta ah oo dad xitaa dabacsan oo macnaha oo dumarka qiyaanaya marka حتى dadka qabo waxay leeyihiin ma haysan geesinimo ay naftooda kula hadlaan marka hadii aad madax adag tahay caan tahay firfircoon tahay waxaad kamid tahay dumarku ragga ay jeclaan numberka labaad ee ninka ragga ah ee dumarku ku jeclaan kara waxa kamid ah dumarku waxay rabaan rag iyaga fahmi doona fahamkuna mar walba aad buu adag yahay waxay rabaan qof iyaga fahma si aad u fahanto haweeneyna waa inaad ugu yaraan la noolaataa dumar badan si aad u ogaato waxa ay rabaan marka qaarkood waxa ay rabaan in muranku socdo dumarka marka laga hadlo waa adiga oo leh raali ahow miyaadan isku daynin in aad qiil u yeelatid falkaaga tusaale ahaan ragga qaar baa fahma naagtooda waxay yaqaanaan waqti ama waxba ay yaqaanaanba waxa ay rabto iyo sinimada waqtiga ku habboon oo ay rabto marka haddii aad dumarka fahmi karto haddii aad taqaano dumarku waxa ay rabaan iyo waqtiga u baahan yihiin waxaad ka mid tahay ragga dumarka u jecel yihiin numberka saddexaad dumarku waxay rabaan nin ruuxi ah laakiin aan ruuxi ahayn macnaha maxaa kala jeedaa markay tani timaadana marwooyin badan ayaa mar walba wareersan oo ku wareersan waxay rabaan qof ilaahay si dhab ah ugu adeega si kastaba ahaatee ma rabaan qof si xeel dheer diintu yaqaan waxaa ka wadaataa dumarka markii aad la hasaawayso ama aad ereyada waxyaabahaas dibadda ah oo inta guur la gaarin waxay doonayaan qof diinta yaqaana qof ku xeel dheer diinta laakiin ma doonayaan qof zaaid ugu xeel dheer diintu waa inuu wax ka yaqaan laakiin waa inuu ku ahayn murshaaqi